waad asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena 1by1 waanu kusoo qaadan doono wararka iyo warbiximii ugu dambeeyey. waxaan wadeegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta, kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doono koobka Champions League. inuu ku bilownay kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah u shaacisay inay shaqadii tababarnimo ee kooxda ka cayrisay tababaraha kooxda ee Thomas Tuchel kadib markii ay kooxda Chelsea guuldarro ku bilowday koobka Champions League. oo markii ugu dambeysay ee kooxda Chelsea laga badiyo kulanka ugu horeeyay ee Champions League waxay ahayd sanadii 2013. sidoo kale tababare Thomas Tuchel ayaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxa uu ku bilaabay ama bilowgii intan uu ciyaaray 5 toddobaad ama toddobaadii ugu horeeyay oo ciyaaray Thomas Tuchel uu kooxda hogaaminayay. waxa uu ku bilaabay ama waxay noqotay mid aan ahayn tii laga filayay oo kooxda Chelsea ayaa hadda ku jirta kaalinta 6aad. haddaba kooxda Chelsea ayaa hadda baadigoob ugu jirta tababarihii bedeli lahaa Thomas Tuchel, waxaana la sheegay inuu tababaraha ugu cadcad u yahay tababaraha kooxda Brighton ee Graham Potter. waxayna kooxda Chelsea hadda u dhaqaaqi doontaa inay kooxda Brighton dalab u gudbiso kaas oo ah inay bixiso qiimaha heshiis tawinta tababarahan, iyadoo ay kooxda Brighton arrinkaas u ogolaan doonto. sidoo kale waxay sheegeen warbaahinta Francisco inuu tababare Zinedine Zidane uu ka mid yahay tababarayaasha ay jeclaysanayaan mulkiilayaasha kooxda Chelsea, balse tababare Zidane ayaa ku dadaali doona inuu helo booska tababarnimo ee xulka koobaad ee qaranka Faransiiska. oo tababare Zidane sidoo uga tagay kooxda Real Madrid waxa uu hadafkiisu inuu noqdo tababaraha xulka qaranka Faransiiska, iyadoo la filayo inuu noqon doono tababaraha xulka qaranka Faransiiska kadib koobka adduunka ee sanadan ka dhici doona qadanka Qatar. waxa isaguna ku jira tababarayaasha diiradda u saaran kooxda Chelsea tababarihii hore ee kooxda PSG Mauricio Pochettino. dhinaca kale kooxda Real Madrid goolkii saddexaad ay dhalisay kulankii xalay ee uu dhaliyay ciyaartoyga Eden Hazard ee ka dhaliyay kooxda Celtic waxa uu noqday goolkii ay kooxda Real Madrid ka hor goolka ay soo ciyaarto baasas u badan kadibna ay kooxda dhaliso. kooxda Real Madrid goolkii Eden Hazard ee saddexaad ka hor waxay ciyaareen ciyaartoydeedu 35 baas oo xiriir ah, waxaana noqday goolka ugu badnaa ee kooxda Real Madrid Champions League intay baasas ciyaarto kadib ay goolka dhaliso. oo kooxda Real Madrid intuu u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2022 waxay koobka Champions League ka dhalisay 434 gool. haddaba goolkii 434aad ahaana goolkii saddexaad ee xalay ciyaartoyga Eden Hazard uu ka dhaliyay kooxda Celtic ayaa noqday goolkii ay kooxda Real Madrid dhaliso, balse goolka ka hor inta aanay dhalin ay kooxda awoodo inay ciyaarto baasas ugu badan ama inta ay awoodaan waxa uu noqday inay 35 baas oo xiriir ah iyo kooxda soo ciyaarto inta kadib ay dhaliso goolka. halka uu tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti uu gaaray xalay guushii 100aad ee Champions League kadib markii uu xalay ka badiyay kooxda Celtic. oo tababaraha Carlo Ancelotti ayaa kooxihii uu soo tababaray horyaalka Champions League waxa uu la gaaray marka dhamaantoodba la isku geeyo 100 guulood. haddaba kulankii xalay ee Celtic ayaa ahaa guushii 100aad. haddaba kooxihii uu soo tababaray imisa guulood ayuu la kala gaaray se kooxihii ayay kala ahaayeen waxayna u kala yaalaan sida tan. kooxda AC Milan ayaa kooxda ugu badan ee uu guulo la gaaray koobka Champions League waxaana la gaaray 39 guulood. waxa ku xigta kooxda Real Madrid oo marka la isku geeyo muddadii hore u haystay kooxda iyo haddaba waxa uu la gaaray 29 guulood. sidoo kale waxa ku jirta liiska kooxda Chelsea oo ah kooxda saddexaad waxaana la gaaray 10 guulood. kooxda Bayern ayaa iyadana waxa uu la gaaray 7 guulood halka uu PSG la gaaray 6 guulood. sidoo kale Napoli 5 guulood. kooxaha Parma iyo Juventus iyagana waxa uu la badiyay ama uu la gaaray 2 guulood. bal markaan aynu eegno waxa la sheegay inuu ciyaartoyga Gerard Pique uu ku xidhay madaxweynaha kooxda Barcelona ee Juan Laporta hadduu madaxweynuhu rabo inuu ciyaartoygan Pique hoos u dhigo mushaharkiisa in laga rabo kooxda Barcelona inay iibiso qayb ka mid ah istuudiyaha kooxda Barcelona. haddaba madaxweynaha kooxda Barcelona ee Juan Laporta ayaa arrinka dhageystay kadib markii uu la kaashaday sharciga waxa uu diiday ama waxa uu ka hor imaaday arrinkaas isagoo ku tilmaamay inuu arrinkaasi ka hor imanayo anshaxa iyo mabaadi'da kooxda Barcelona. ciyaartoyga Gerard Pique ayaa u sheegay kooxda Barcelona haddii ay doonayaan inuu ciyaartoygan mushaharkiisa hoos u dhigo inay kooxda ku khasbanaan doonto inay iibiso qayb ka mid ah istuudiyaha kooxda Barcelona, arrinkaas oo uu ka hor imaaday oo anshax xumo ku tilmaamay madaxweynaha kooxda ee Juan Laporta. dhinaca kale ciyaartoyga Eden Hazard ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo kulanka ay kooxda Real Madrid la ciyaari doonto kooxda Real Mallorca horyaalka La Liga kadib markii uu dhaawac soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ay kooxda Real Madrid ciyaartay weeraryahankii sida joogtada ugu ciyaari jiray kooxda Real Madrid ee Karim Benzema. haddaba ciyaartoygan Eden Hazard ayaa la filayaa inuu ka ciyaari doono kulanka Real Mallorca ay kooxda Real Madrid la ciyaari doonto inuu buuxin doono booskii Karim Benzema kadib markii uu bedel ku soo galay kulankii Celtic oo uu awooday inuu dhaliyo gool sidoo kale uu caawiyo gool. ciyaartoygan Hazard ayaa sida uu sheegay tababare Ancelotti waxaa xilli ciyaareedkan inta badan loo adeegsan doonaa inuu ka ciyaaro booska Benzema oo uu noqdo nooba been ah ama sagaal aan jirin.
halka ay kooxda Atletico Madrid diiday dhammaan dalabkii laga soo gudbiyey ciyaartoyga Joao Felix. ciyaartoygan ayaa laga soo gudbiyey dalabyo gaaraya 100 milyan oo euro, waxaana uu aaminsan yahay tababaraha kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeone inuu ciyaartoygani ka hormaray sidii hore oo hadda ka fiican yahay sidii hore, oo sidoo kale hadda sii gaari karo meel ka fiican meesha uu hadda taagan yahay. sidaa darteed ay kooxda Atletico Madrid u diiday inay ciyaartoygan iibso ama ay ogolaato dalabyada laga soo gudbiyey, iyadoo ay jiraan dalabyada qaar ay gaarayeen 100 milyan oo euro. ugu dambeyntii haddaynu eegno kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doona caawa koobka Champions League, kooxda Barcelona ayaa ciyaari doonta kulankeeda ugu horeeyay koobka Champions League xilli ciyaareedkan, waxayna garoonkeeda Camp Nou ku martigelin doonta kooxda Victoria. kooxda Barcelona ayaa isku dayi doonta inay kusoo laabato koobka Champions League oo ay ka mid noqoto kooxaha meel fiican ka gaadho koobkan, ama ay gaadho finaalka ama ay ku guuleysato, oo kooxda Barcelona oo ugu dambeysay inay ku guuleysato koobkan sanadii 2015. kooxda Barcelona hadda sidii hore maahan, oo kooxda Barcelona waxa ay yimaada isbedel. sidoo kale kooxda Barcelona hadda waxay haysataa haddii la eego line upkeeda ama ciyaartoyda ay ka kooban yihiin kooxdu, ciyaartoydii la odhan karayay waa u tartami karaan koobkan Champions League, ama ugu yaraan meel fiican ayay ka gaari karaan sida semifinal iyo finaalka oo kale. waxaana kooxda Barcelona u bilaabmay safarkii ay ku raadinaysay koobka dhagweynaha ee Champions League, iyadoo uu hogaamin doono Lewandowski oo ka mid ahaa ama ahaa qayb ay kooxda Barcelona aad u raadinaysay kadib markii uu ka baxay ciyaartoyga Luis Suarez. sidoo kale haddii aynu eegno shaxda kooxda Barcelona inay u eg tahay shax dhammaystiran oo tartami karta ama ka mid noqon doonta kooxaha ku guuleysan kara koobka Champions League. dhinaca kale kooxda Liverpool ayaa la ciyaari doonta kooxda Napoli, oo kooxda Napoli ayaa ku bilowday horyaalka Talyaaniga ee Serie A si fiican oo waxay ku jirtaa kaalinta labaad, halka kooxda Liverpool horyaalka Ingiriiska ku bilowday hab aan ahayn kii looga bartay. oo kooxda Liverpool horyaalka Ingiriiska waxaa jiray inaanay ku bilaabin sidii looga bartay oo ay ku jirto kaalmaha toddobaad wixii ka hooseeya. haddaba kulanka Napoli iyo kooxda Liverpool ayaa ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doono, waxaana noqon kara kulanka labaad marka laga yimaado kulanka Inter Milan iyo Bayern Munchen. sidoo kale kooxda Bayern ayaa la ciyaari doonta kooxda Inter Milan oo waa kulanka ugu muhiimsan caawa, waxaana labada kooxood ee Bayern iyo Inter Milan isugu dambeysay inay wada ciyaaraan koobka Champions League ama iskaga hor yimaadaan sanadii 2010 oo xilligaas oo ay iskaga hor yimaadeen koobka Champions League finaalkiisii oo ahayd sanadii 2010, waxaana lagu qabtay garoonka Santiago Bernabeu, halkaas oo ay kooxda Inter Milan ku qaaday koobka Champions League. haddaba kooxda Bayern iyo Inter Milan ayaa ciyaari doona kulanka caawa ugu muhiimsan ee koobka Champions League, sidoo kale noqon kara kulanka ugu muhiimsan toddobaadka Champions League. ugu dambeyntii waxaa iyaguna ciyaari doona kooxda Atletico Madrid oo ka hor imaan doonta kooxda Porto, iyo kooxda Tottenham oo waajihi doonta kooxda Olympique Marseille. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like, share, subscribe, dheh channelka si aad